waxaan idin xaqiijinayaa inaanu ka wasaarad ahaan joojinay tartankaasi oo markii hore aanu ka warqabnay oo aanu ogeyn inuu bilaabmayo sababtaan u joojinayna waxa uu tahay waxa ay baal martay arrinta tartanku shareecadeena islaamka waad ogtihiin qawaaniinteenna waxa ugu weyn dastuurka Soomaaliland wuxuu cadaynayaa wax kasta oo diinta islaamka ka hor yimaada inuu yahay waxba kama jiraan arrinta qablahaas waana soo wargeliyeen Ubax Inspire and Fitness Center waanu ka warqabnay tan iyo 2017 ayuu arrintaasi jirtay wuxuu gaar u ahaa hablaha oo kaliya inay ku ciyaaraan markii aanu ogolaanshaha siinaynay waxaanu u sheegnay inaanay hablaha ciyaarahooda wasaaraddu ay ogoshahay oo ay u dhiirigelinayso sida ay inamada kale u dhiirigelinayso kubadda cagta haday tahay kubadda kolayga haday tahay ciyaaraha fudud haday tahay iyo dhammaan ciyaaraha kale ee ay inamadu ciyaaraan si la mid ah laakiinse waxa ay kaga duwan yihiin inay diinta islaamka waafaqsan tahay oo aan la shaacin sawiradooda isla markaana aanay ahayn goobo la daawanayo sida inamada oo kale hablahan markii ay soo wargeliyeen iyadoo aan ognahay in ay wasaaraddu kaliya ku dhawaaqi karto ciyaaro gobollo haddana inaanu dhiiri gelino waanu la ogeyn inay garoonka ku ciyaaraan inay waqtiga bilowdaan laakiinse waxa sharti ahaa in hablahaasi waqtiga ay ciyaarayaan iyo ka horba aan muuqaal iyo sawir midna aan la soo bandhigin waxaad ka warqabtaan in labadii maalmood ee u dambeeyay ay baraha bulshada iyo TV-yada qaar ay soo bandhigeen in ay hablahaasi tartankaasi u bilaabmayo waliba iyaga oo garoomadii jooga oo ciyaaraya sawiradoodii sawirada qaar baa waxay yihiin qaar ay habluhu saraawiil gaaban xidhan yihiin arrintaasi ma waafaqsana diinta islaamka ma waafaqsana wixii aanu isku ogeyn sidaa darteed baanu u joojinay muuqaalada qaar fiidiyoyada laga soo duubay rag baa dhex jooga oo ka hadlaya anigu waxaan taageerayaa gobolkayga hebel inuu rag dhex joogo iskumaanaan ogeyn inay rag meel ay ku ciyaarayaan istaagaan la iskuma ogeyn in sawiradooda Facebook la soo dhigo la iskuma ogeyn iyo social media tartanka inay ciyaaraan oo ay walba tartamada way ciyaari jireen meeshooda gaarka ku ciyaaraan waanu dhiiri gelinaynay waanu la ogeyn laakiin arrintaasi markii ay falcelin ka keeneen culimadii islaamka ee Soomaaliland iyo bulshada inteeda badan waxaanu go'aansanay inaanu joojino